السلام عليكم رمضان مبارك كسر دوادا يوتيوب كان قصالتي ما أنت واحد ده في اللي الفايل دي رايس كسر دوادا هرارا فيلمku wuxuu ku bilowmayaa Tani iyo Bobli oo haya buugaas ay doonayaan inay akhriyaan laakiin se buug ayaa si lama filaan Tani u jeexaya oo buuga ayaa wuxuu leeyahay saraariyo ka kooban cidiyo buuga ayaa dabatana iskiisu furaya buuga ay akhriyaan waxa ku sugan oo ku xadhan waxa weeye waxyaabo kamida sixirka iyo qaababka sixirka loogu yeero iyo waxyaabii hore u soo dhacay Tani ayaa hadana buugiisii fiirinaya Bobli oo naxsan oo ka jeesjeesanaysa ayaa si lama filaan buugii ka xidhaysa waxayna ku oranaysaa markan baxo ka bacdi buuga akhrisaan waan baqayaa buugii ayuu ku noqonayaa abaar markuu akhristo wuxuu la soo baxayaa raadiyo hadana buuga la socday oo buuga ku akhrinaya dabatana buuga markuu raadiyoga shigo ee sameecadii ku shido waxa si automatically u soo baxaya way buugan hadda akhrido jinka ayaa ku imanaya gabadhani waa Jasmi waxay joogtaa oo soo koraysa wiishka iyadoo dibadda ka timi waxayna soo qaadatay dhar kana waa ninkeedii Tony oo wali dhageysanaya codkii sixirada kaas oo isugu yeedhiyo codkani dhammaan ruuxamada aaga ka dhow maadaama buugu qosay ruuxanta ayaa si automatically fooq u soo koraysa buugiina ayaa islaalaabaya wuxuu dareemayaa inay wax weyn khaldan yihiin si lama filaana wiishka ay saaray Jasmi ayuu soo galaya ruuxantii waxaanu hore ugu ridayaa wiishka Jasmi oo wali warwaraysa ayaa gudaha ku jirta waxay soo dhanaysaa albaabka iska fur balse albaabku ma aha mid furamaya ee wiishku dabadeeda ayaa wax ka sanqadhayaan hore ayaa loo riixayaa abaar markay joogto dhagteeda ayaa hore loo saaraya waana naxaysaa iyadoo wali murugaysan ayaa xadhig xagga sare ruuxantu kaga qabanaysa iyadoo qoorta kaga xidhaysa qoorta markay kaga xidho lugihiina ay rafanayaan ayay soo dhanaysaa gidaarka baltiigso oo lugta ku qabo diyaarkii markii lugta ku qabato xadhig ayuu lugti kaga xidhayaa gacantii ayuu kaga xidhayaa haddana lugtii kale ayuu xadhig kaga xidhayaa sidaa darteed waxay gacanta ugu jirtaa ruuxantii oo saa ku gashay saaxiibadeed Saari tanna waa Jasmi oo ay qof aadiya oo gurigeedii timi saaxiibadeedu way la yaabantay waxa ku dhacay iyadoo xanuun ka dareemaysa kuwaasna waa Tony oo ninkeedii iyo Bobli iyo inantii yarada ay dhashay waxay u qubeynayeen oo biyo gelinayay wasle bal ka saara xumada iyo xanuunka haya balse wixii ayaa ku kacaya waxaanay si automatically u koraysaa gidaarka iyadoo gidaarka raacaysa naxdin awgeed ayagina halka ka soo daawanayaan guriga dabaqa cidii la deganayd oo dhan ayaa codkeeda maqlaya qayladiina aad ay u baahaysaa hal mar ay aamusaysaa mise dhulka ku dhacaysa inta ka bacdi wixoodii oo dhan way yaaban yihiin waana naxsan yihiin dib ayay haddana u soo kacaysaa oo dib ayay u soo kacaysaa iyadoo ku qoslaysa iyaga oo codsa waxana bixinaysa hadal la bixinaysa iyagiina way yaabeen gurigiina way ka kala yaaceen waxay u soo talaabsatay dhankoodii iyadoo ku jeesjeesaysa maadaama ruuxan ku jirto iyaguna way yaabayn saaxiibadeed ayay waabisay haddana quraarad ayay ka gelisay gacanta si automatically ay haddana quraaradii u tuurtay waxay dhinacii u jeesatay Bobli oo halka taagnaa si ku booday iyadoo isha doonaysa inay ka geliso laakiin anka ayay ka muday in yar ka bacdi saaxiibadeed gacantii ayay xidhatay ninkeedii Tony ayaa kursi kaga dhuftay oo kaga kiciyay haddana albaabkii ayay ka soo jeesatay iyadoo gacanta soo saartay ayna u jeesatay dhankii ninkeedii Toby iyadoo doonaysa inay ku boodo balse si kale waxay ku booday qof kale oo fooq dhinaciisa dariska ah oo u yimi waxaana ka saaratay ishii oo ka cantugtay ishii ay tuftayna waxay afka u gelisay saaxiibkeed oo meesha halka taagnaa dabatana iyaguna waxay sameeyeen inay albaabkii iska soo xidhaan saaxiibadeed albaabkii marka xidhay gudihii waxa ugu soo haray dadkii dariska ahaa ee meesha u soo baxay qaylada Saari ayaa daloolka albaabka ka soo eegaysa iyadoo arkaysa inay marba dhan u eryeynayso dariskii u soo dhawaaday iyadoo gidaarka ka jirtay mid kale halka ay albaabka daloolkiisii uu qof kale uga soo muuqday iyadoo qoorta ka jeexaysa dhinaca kale oday ayaa soo dhaqaaqay qori ku dhuftay odaygii qoriga ku dhuftay ayaa hadana ku soo ahaaday albaabka ayaanay daloolkiisii hadana soo eegtay iyadoo la albaabka iga fura
kale Bobli iyo inantii yar ay dhashay gabadhii ruuxaantu gashay ee Jasmine ayaa wada sheekaysanaya. Bobli cankeeda eegaysa waxay dareemaysaa in iyagana lagu soo socdo oo ruuxaantii galayso. Buugagii ayaa wali furan, sankeeda dhiig baa ka yimi. Waxa ku sii xigay indhaheedu oo ay ka imaadeen xinjiro madmadow. halka inantii yar ay dhashay Jasmine ay hooyadeed ka daawanayso daloolka iyadoo fadhida, waxayna dareemaysaa Jasmine ruuxaantu ku jirtay in inantii daloolka ka soo eegayso, waxaanay u imanaysaa oo ku odhanaysaa iga fur albaabka hooyo. Bobli oo wareersan iyana waxay cabaysaa biyo oo waxay tufaysaa xinjirihii iyadoo fahansan in lagu soo socdo, afkeedana waxay ka soo deynaysaa dirxiyo. wali waxay Jasmine kala hadlaysaa inanteedii yar ee daloolka iyadoo kule albaabka iga fur hooyo, iyaduna ay ku leedahay hooyo ma isbedelaysaa maadaama ay ciyaal tahay. albaabka ayay ka furaysaa. albaabkii markay sidaa uga furto ay cunaha ku dhagaysaa inanteer oo sare u qaadaysa. waxa ku soo cararaya Sari iyo ninkii Jasmine ayaa dirqiga kaga furfuraya oo albaabkiina dib u xidhaya. Sara ayaa daloolkii dib uga eegaysa, albaabkana iga furay leedahay way qaylinaysaa. Sarna iyadoo murugaysan ay albaabkii riixaysaa. dhanka kale inantii yar ee aabaheed weydiinaysa waxa helay hooyadeed, laakiinse Sari waxay u tagtay Bobli oo bakeeri cunaysa oo caadi cunaheeda u marinaysa iyadoo burbursanaysa oo dabatana caadi u liqaysa ee cunaheeda laga arkaya quraaradihii. Sari way argagaxday waana wada hadlayaan, balse ruuxaantii ayaa la hadlaysay maaha inay Bobli la hadlayso, waana ku soo dhaqaaqaysaa dhankeeda iyadoo ka fukanaysa, dabatana lugta ay miishaar kaga xagaysaa. Sari ayaa soo qabanaysa weel weyn iyadoo madaxa kaga dhufanaysa Bobli oo ruuxaan isu bedeshay. haddana toos ayay Bobli u soo boodaysaa halka dibadda ay ka qaylinayso Jasmine. albaabka ayay ku soo celinaysaa, waxay u cararaysaa dhankii inanta yar ayaa cunaha wax ka gelinaysa Bobli oo ruuxaan isu bedeshay. Bobli oo ruuxaantii ku jirto ayaa dhulka ku dhacaysa, inantii yareedna way murugoonaysaa way eegaysaa. wali Jasmine ayaa dibadda taagan iyadoo baarsi qaab ay u gasho guriga. waxay arkaysaa saqafka sare oo bisad marayso, halka ayaanay ka soo galaysaa. Tony oo ah ninkii Jasmine ayaa arkaya ruuxaantii oo gudaha u soo gashay oo kuna soo carartay, sidaa darteed Tony ayuu ku booday. Tony markay qabatay dib ayay isaga riixday, mindi ayaana iska soo saartay, mindidii gacantii ka gelisay. halkan kale Sara dhagaheeda iskaga sidataa waxay dhageysanaysaa, afka ayaanay dhiig kaga shubtay Tony. wixii la joogaba haddana Bobli ayaa timi. Bobli ayaana gacanta mindidii intee ka saartay ayay haddana mindidii wadnaha ka gelisay, waanay ololiyeen way gubeen. Sara oo iskaga fadhida kursi wax dhageysanaysa ayay ruuxaantii u timi, waanay ka kacday meeshii. Sara ayaa qalin baadhatay, qalinkii ayaanay cunaha ka gelisay, balse qalinkii waxba kama tarin oo Sara ayay intii ku booday ayay qabatay ayay dhulka dhigtay. dadna Sara ka soo carartay waxay u timi Tony oo badhna ololaya oo sii dhimanaya. Sara way ku soo booday, cunahaanay qabatay, dhulkay dhigatay Jasmine. wayna foorisay iyadoo dhinacyada qabatay, gamaha qabatay, calooshana cidiyaha ka gelinaysa ayay inantii yar u soo tuurtay maqas, wajigeena maqaskii ka gelisay. Jasmine sidaasay ku mooganaatay, laakiin waa horor ma dhimanayo. Sara iyo inantii yar ayaa guriga ka soo baxay maadaama aanay labadooda qura mooyane cid kalaba hadhin. dibadda ayaanay u soo baxeen, waxaanay imaadeen dhinacii gaariyaasha iyagoo gaari istaadhay doonayeen inay meesha ka tagaan. ayaa waxa ka xidhmay albaabkii dibadda, bahalkiisiina way hayaan way ku fureen. albaabkii markay fureen ay isdhaheen carara oo dhaqaaqa, ay gaadhigii kaxeeyeen. gaadhigii ayaa dhulka meel ka galay, gaadhigii baana dhaqaaqi waayey. gaadhigii dabatana waxa yimi ruuxaantii baa soo carartay oo ah wax allaaliyi wixii dhintay oo isa soo dul saarmay oo ruuxaan ahaan noqday, waanay gaadhigii ayaanay ka degeen, gaadhigii dhinaciisanay ku dhunteen. Sara ayaa inanteer ku odhanaysa ii aamu, dabatana dhankii markay eegto ruuxaantii ayay arkaysaa, dib ayaanay u cararayaan iyadoo qorigeedii sidata. say u yaacayaan bay ku fayaan, inantii yareed ayay jiidanayaan oo shabag ayaa ka dhex xidhmaya labadoodii maadaama islaayeen meel ka gudba. inantii yareed ayay gelinayaan halkaa, Sarana waxay la dhacaysaa laad iyadoo isla meesha fur. inantii yareed ayaa ruuxaantii oo ah Tony iyo Bobli iyo gabadhii Jasmine oo isku jira ayaa miishaar soo qaadanaya, waxaanay doonayeen inay inanteer ku jeexaan, laakiinse Sara ayaa dib u soo cararaysa iyadoo qorigeedii sidata. intaanay ku dhufan ayay ka gaadhaysaa, waanay ku dhufanaysaa. markay xabadii saa ugu dhufato ayay inantii yareedna ka soo boodaysaa, gaadhiga hoostiisay gelaysaa, balse jaartii ayay ku soo tuurayaan Sara. Sarina way dhacaysaa, qorigii baa ka dhacaya. dabeetana waxa soo baxaysa ruuxaantii oo wada socda, dibaddaana u soo boodayeen iyagoo saddexdiiba isku lamaana.
saara ayaa soo dhanaysa intay ku jiidayaan adna mishaarta jiido balse way u suura gali waayaysaa inay mishaarta qaato madax ayaanay u foorinayaan halkan waxa yaala mashiin lagu talagalay biraha in lagu jarjaro oo lagu yaryareeyo mashiinkii ayay wada istaareen dhanka kale waana istaareen dhamaantii waxaanay doonayeen in iyada lugaha u galiyaan balse lugta ayay ku dhufatay oo dib ayay u soo dhacday mishaartiina ayay qaatay iyagoo mishiinkii dusha iyagu kaga fadhiya ayay mishaartii ku celinaysaa si ay ugu riixayso ayaa mashiinkii dabada ka qabsanaya horeyna ugu wada riixaysa waana yaryaraysmayaan oo jidhkoodii ayaa gogo'aya dhiiggiina dibaddu u baxaya laakiinse ruuxaantu qofkii ay ku bilowmatay oo Jasmine oo inanta yar ee meesha joogtana dhashay ayaa wali aan dhiman oo qaarkii sare wada maran dabatana way baraysaa waxa ku oranaysaa saaray saaxiib hay dilin oo sidii qof caadi isaga dhigaysaa laakiinse iyadu waxay ku oranaysaa yeelimayo madaxay ka gelinaysaa halkaas sare madaxa intay kaga qabato ay ku riixaysaa ilaa iyo ay ka dhamaato oo jidhkeedu kala haro oo jidhkeedu kala gogo'o dabatana madaxeeda qura ayaa soo hadhaya xeedii soo hadhay ayaa bilaabaya inuu haddana hadlo oo ruuxaantii ka dhex hadasho dabatana way argagaxaysaa oo way yaabaysaa ilaa ay intii laad ku dhufato mashiinka ay ku darto madaxiina yaryareysmo halka filimku ku